Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa ilmaha dhagaha ka xanuunsanayo kale oo ilmaha markuu dhashay ilaa iyo 3 sano oo ka gaarayo kale ay ku badan tahay 3 sano haday dhaafaan inta badan waxay dhacdaa ama jirto in cunugii aysan ku badnayn in dhaga xanuun uu ku yimaada marka inta badan dhaga xanuunkan hooyooyinka ilaa cunugii inuu dhagtiisa dheecaan ka imaado maahan si fiican ma ku fahmi karaan mar haddii cunuga uusan hadlaynin oo kale wali uu sanadka yar yahay oo kale inuu dhagti dheecaan ka imaado qoyaankiisa la arka maahan inta badan hooyooyinka waxa dhacdo inay ku wareeraan iyo waxyaalo haddii ay hooyadu ku aragto inay dhakhtar gees ay wanaagsan tahay haddii ay daaweyso dhibka xanuunka hadda hayo cunuga ka weyn oo ku imaan kara ay dhici karto laa qadar Allah marka mawduuca kaasaan kaga hadli doonaa soo dhawaada haddii ay tahay markii kuugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkana furo si fiidiyoada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahay like noo saar asxaabtaadan u sii share gareey soo dhawaada in cunugii dhagta ka xanuunsadaa horta bacteria ama virus labada mid ayaa keeni kara maxaa calaamadaha oo lagu arkaa calaamadaha lagu arki karo waxaa kamid ah koobka ah cunugii inuu dhagaha uu jiidis ku sameeyo kale uu dhaga jiido way keeni kartaa oo taas waxay kala mid noqon kartaa oo kale cunuga markay ka soo baxayaan asagana wuu leeyahay inuu dhagaha iska jiido oo ay ka sameeyeen yihiin calaamadaas oo kale hadda maadaama hadda muuqaal oo waxaa jiro kan ka horeeyo oo aan kaga hadlaynin ilmaha xilliga ay u soo baxayaan marka ayadana way keeni kartaa in cunugii dhagaha iska jiido calaamada labaad lagu arki karo waxaa waaye in cunugii qandho said ah uu yeesho waxaana cunuga ilkaha markay soo baxayaan qandho saas ma lahan wax yar uu lahaan karaa laakiin cunuga marka uu dhagaha ay xanuunayaan oo kale qandho said oo laga yaabo xataa inay 40 degree ka badan tahay ayaa cunuga lagu arki karaa oo cunuga qandhadiisa ay said noqotaa kan saddexaad oo lagu arki karo cunuga markuu dhagaha ka xanuunsanayo waxaa kamid ah ooyin said ah inuu cunuga yeesho ooyin xad dhaaf oo kale inuu cunuga yeesho waa lagu arki karaa oo cunuga inta badan inuu aamuso ama nasiino yar uu helo way ku yartahay marka cunuga dhagta ka xanuunsanayo tan afaraad ee ilmaha lagu arki karo waxaa kamid ah in cunuga markii aad seexisid cunuga uu ooyin bilaabo uusan hurdi karin wax walba uusan aqoonsanin intuu dhagta ka xanuunsan yahay laakiin cunugii markaa ximbaartid oo kale ama fadhiisid ama istaajisid wax yar waxa u maleysaa in cunuga intiisa yaranayso xanuunka ka yaraan laakiin xagga jifka markuu cunuga hamiyo ma seexan karo oo cunuga wuxuu bilaabaa in ooyin tiro badan uu yeesho tan shanaad ugu dambeyso oo calaamadaha lagu garan karo in cunug dhagta ka xanuunsanayo waxaa kamid ah in dhagtii uu ka yimaado dheecaan waa tan ayadan ugu dambeyso lagu aqoonsan karo in cunugii dhagtiisa dheecaan ka timaado in cunug dhagta ka xanuunsanayo waxaa jirta hooyooyinka in cunugii markuu dhagta saas oo kale dheecaamay wax ku arkaan oo kale inay yareystaan intay farmasho ka tagaan goojo soo qaataan cunugii dhagta ay kaga shubaan halisteeda badan oo haddii waxa sababay oo kale aan la ogeyn oo kale oosan la aqoonin dhakhtarkiina aadan u geynin farmasho ama adiga aad inta baxda daawo iska soo qaadato oo kale cunugii dhagta kaga shubtaa waxaa dhici karta la qadar la in cunugii uu maqalkiisa uu dhaawac ka gaaro ayaa dhici karta oo cunugii xagga adiga xanuun ka daaweynaysa laakiin maqalkiisa dhagtaas oo kale inuu saameyn weyn ka dhacda la dhici karta ilaahay ma kaso marka waxaa wanaagsan hooyada markii cunugeeda uu ku aragtaa in dhagta ka xanuunsan yahay inaysan wax goojo ah siinin haddii cunuga qandhada saidka ah oo kale inay paracetamol oo siiso kale intii dhakhtarka ay ka tagaysa paracetamolkaas ay siisaa laakiin wax goojo ah inaysan farmasho uga soo qaadin aysan siinin haddii goojo la siinayo waa inuu mid dhakhtar u soo qoray uu yahay uu ku qaadan karaa laakiin intii xanuunkaasi waxa saafeen lahayd cunugaada maqalkiisii waxba dhaawac gaarsiinin insha Allah marka maxaa sababi karo oo keeni karo in cunugii uu yeesho oo dhagta ka xanuunsado waxyaalo badan ayaa keeni karo oo koow waxa ka ah in cunugii uu geedkan ilmaha lagu aamusiyo kala afka loo galiyo xinjirkaas in cunugii uu isticmaalkiisa ku badan yahay oo kale oo hooyada inta afku galisay ka danaysanayso kale oo cunuga bahalkaas maanta 12 uu nuugayo way keeni kartaa in cunuga dhagtiisii uu ku yimaado xanuun waxaa kale oo keeni karo in cunugii uu difaaca jirkiisa aad u yar yahay kale waxaa keeni karta labaad in cunuga difaaca jirkiisa aad u yar yahay kale waa keeni kartaa in cunugii uu dhagaha ka xanuunsado tan kale oo keeni karta waxaa kamid ah in ilmaha jiifka lagu siiyo kala masaasada
haddii cunuga uu dabiici uu nuugayo oo naaska uu nuugayo oo maxaa la dhahaa naasnuujin caadi u haysto oo kale way ku yartahay li'aana naaska waa jileecan yahay tan labaad difaaca jirka oo cunuga ayuu xoojinaya naaska caanaha naaska laakiin markii cunuga caanahan caadiga ah la siinayo uusan naas nuugayn oo kale difaaca jirkiisa saas uma sii xoogana mida labaad jiifka cunuga marka lagu siinayo way keeni kartaa in uu cunugii dhagihii uu ka xanuunsado uu jiri wax kaga timaado way keeni kartaa marka waxaa wanaagsan hooyada haddii cunuga ay masaasad ku siinayso oo kale inaysan joodariga aysan la seexin uu digriyo cunuga madaxiisa wax yar oo jirkiisa kor uga qaadan yahay oo kale in cunuga haddii ku siinayso xataa ay ku siisaa caanaha aysan meel siman aysan cunugii caanaha la seexin masaasadiisa iyo in hooyadu ku dadaashaa in difaaca jirka cunuga ee sare usoo qaadaa ee wax walbo cunuga difaaca jirkiisa sare lagu qaadi karo ee samaysaa iyo cinjirkan yarkaa ilmaha inta afka loo geliyo lagaga tago inaysan hooyada u isticmaalin ee ka dhaaftaa asaga dhan tan ugu muhiimsan waxaa waaye haddii cunuga xanuunsan yahay waa inaysan hooyada goojo ayada ee soo qorataa aysan siinin waa in dhakhtarka daawada oo qora goojada oo qora ee goojo ahaan ay u siisaa intaas ayaan kusoo koobaa muuqaalka insha Allah haddii ay tahay markii kuugu horreysaan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkan furo si fiidiyoyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaada noo sii share gareeyo soo dhawaada